degmada Baargaal waa degmo ilaa 500 sano jirtay waaga hore sanadba sanad buu ahaa taariikh kala beedisan oo runtii aad iyo aad u maaragtay bay soo madhay ganacsiga deked bay ahaan jiray oo ilaa iyo isku shuban ilaa iyo ufayn ilaa iyo looga yimaado awr baa lagu safri jiray meelaha ku xireed waxa kamid ah Cadan Abadaan oo Iiraan Basra oo Ciraaq Bombay oo India Zanzibar oo Afrika iyo Jidda taariikhdaasi waa la soo dhaafay waxyaalihii magacaas la dhoofin jiray waa laga soo gudbay xatab baa kamid aha cawdeena kamid aha xatab waa qoryo la jaray oo Yemeniya laga isticmaali jiray waxa ka dambeeyay in gaadiidku isbedelo doonyo shiraac leeyahay badda laga isticmaali jiray shiraac leeyahay wax la yiraahdo oo aan motor saarayn khibrad ajaa'ib leh oo runtii badda lagu maro baa jiray waxa soo dhan waa laga soo gudbay matooro doonyo ay saaran yihiin baa loo soo gudbay waxay ahaan jiray xarun sida hadda Puntland oo kaleeto ilaa Gaalkacyo laga maamulo halkan maamul baa ka dhisnaan jiray boqortooyo ah ilaa iyo 200 sano Baargaal waxay soo madhay taariikhdaas waxa hadda ilaa 5 jeer ayaa golo deegaan loo sameeyay degmo ahaan waxay qaadatay 1989kii Maxamed Siyaad Barre ayaa u magacaabay dhowr degmo oo gobolka Bari iyo Nugaal iyo kamid ahayd laakiin nasiib xumo waxaan iman maayarkii warkaasi xamar baa laga soo magacaabi jiray maayarkii ma iman kuma shaqeyn 2 sano isagoo joogay xamar ayaa dawladda burburay dabadeedna 98 ayaa Cabdilaahi Yuusuf magacaabay haddana degmooyin Puntland loo magacaabay dadka ku nool Baargaal inta hoos timaada iyo xaruntooda ilaa 60,000 ayay nagu qiyaasan tahay Baargaal gudaheeda 12 baa ku nool dadku maciishada ay ku nool yihiin waa 40% dadku badda loo shaqo tagaa 30% xiji oo beeraha kamid ah ayaa loo shaqo tagaa 20 waxa loo shaqo 10 iyo 5 waxa loo shaqo tagaa oo xoolo dadku xoolo dhaqato 7 ganacsato yar yar baa jira walow hadda sanadahan dameeto uu isbedelay ganacsiga isbedelay cimiladii isbedeshay maxaan wax soo saarkii isbedelay wixii dalkeena laga qaadi jiray dibadda la geyn jiray iyo wixii ama dalkii dibadda aynu ku xireen han noqoto ama dagaalo ama sicir barar ama ay ka dhaceen sida hadda Yaman oo kaleeto oo dagaal ka jiraan oo kalluunkeena la geyn jiray sicirkiisu waa isbedelay qiimihiisu waa isbedelay xaaluf baa badda galay xijiga oo kaleeto roob markuu waayo uu qalalaya wax soo saarkiisana uu yaraanaya qiimihiisa baa isbedelay Sacuudiga inta badan inagu aynu iibgiisa jeesray COVID-19 baa haddana suuqiisii hoos u dhigay arrimahaas oo dhan marka la isku ururiyo waxay tahay in bulshadu ay sidii hore u noolaan jirtay si ka bedelan hadda ay tahay abaaraa jira marmar duufaanaa jira kulliba waxyeello ay keenaan marka Baargaal ilaa 14 tuula hoos yimaada wadooyinka iyo waa jiraan meelo maaragtay aanu wadooyinka ciriir yihiin laakiin inta badan waa dhul caadi ah oo maaragtay loo safri karo laga shaqeyn karo lana soo arki karo marka inahaasaan taariikhdeeda